السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إله baa mahad leh laakiin ilaahay kadib waxaan rabaa inaan kuu mahadceliyo sida aad maaragtay aad ummadda Soomaaliyeed su'aalaha diiniga iyo su'aalaha kaloo maadiga kulli aad ugu jawaabto. جزاك الله خير أخي، بارك الله فيك. Su'aasha hadda aan qabo waxaa weeye baryahan waa aragtay magaaladii Muqdisho dowladdu waxay maaragtay ka kicinaysaa dadkii guryihii danta guud ha laga kiciya sida looga kicinaa si maaragtay bini'aadanimada ku saabsan ku habboon ama maaragtay bini'aadanimada ku jirta ma aha 9 saac habeenimo 10 saac habeenimo in dadka guryahooda loogu dhaco marka arrimaha noocaas maaragtay dadka noocaas loo galaa iyo dadkii oo maaragtay ama qori lagu garaaca ama ul lagu garaaca ama dad waayeela ah dad xanuunsan dad ilmo ah diinta maxay ka qabtaa maxaa maaragtay arrintaas maxay diinta ka qabtaa maxaana kusoo kordhinaysaa oo dowladda xaggeeda iyo dadkiiba aa leedahay بارك الله waa فيك mahad أخي. حقيقة إلهي ظلمك وحرمي نفتي حرم وكدغي دولة مسؤولية إذا إلهي قيامها وويدنا دتك مسؤولين كان أوصل رأي مدحوينها كان أوصل أقاسمها قيامها إلهي سبحانه وتعالى يوم يقوم ناس لرب العالمين ما أنت إلهي ارتسل الاستاج دونا ولا ويدي دونا قف كست الظلميين وإلهي وكرقاد دونا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده مظلمة من أخيه فليتحلله الآن وردتك الظلمين حتى عفس كالبضع هديك المعنت يوم القيامة وكش الله إنسان حق أسوان يرجع قاد دونا سأصدرات الدولة المسؤولية إذا كه ومدة وهذا دولة الآن ونفتق الدين تم أقوله إني كلا دمبين إجرت أقول وحوى ناكسن لبا دولة على الربع مركو رئيسو دتك إني لمريسو مسلم دتك مساكين تا نين أنت سنة دكنا أنت سنة ميل دكنا وإنه هرت مركو رئيس أيضا مسؤول كهلوي الدنيا نقف كل وضع عقابة ما حمش ودكنيت ما أنت عدا تري دنجود أيام ناش أي اللي سمينا يا قدم ككود وحدتك كعيني سهرتوا أنا ميل وسميسه aad cilaanisaa aad dadkan u sheegtaa maxaa yeelay beentaa badatay xumaanta faafaysaa badatay waa inay dadka mas-uuliyiinta ay soo istaagaan ay yidhaahaa hebel iyo hebel iyo hebel guryaha laga kiciyey meeshaas iyo halkaas la geeyey oo dadka loo sheegaa dadkani la keenaa oo la yidhaaho anagaani la rarayno anagaani wax nii qabanayno laakiin dadka in oo la cadaadiya ilaahay subxana watacaala ma ogolo xataa xoolaha diiday islaamka xoolaha ayaa la diiday in la iska garaaco oo la tumo iska dhaafe qof muslim in qoray iyo wax lagu garaaca oo ama qof bini aadan ah diintan ma ogola darbigana iyo dilkaas ma banaano nidaam ay leedahay shuruuca jirto wadanka shuruuc Soomaalida mushkilada taal waxa way Soomaalida sida aniga u qiimeeyay akhi ilaahay khayr ku siiyo waxa way ninka dhaalimka asal dhinac madluum uu ka yahay waxa laga yaabaa dadkaas iyo naftooda inay isdulminayaan dad iyo ku dhex jira inay ku dhex jiraan waa mushkilo waa marka nin waxa arkaysaa intan dhaalimka ah wax dulminaya intan madluumka laga dulminaya arkaysaa Soomaalida saasi u badan yihiin marka laakiin mas'uuliyadda dadka qaaday ayaa ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri waxyaabaha qiyaamaha oo ilaahay weydiinaya waxa kamid ah kullukum raa'in wa kullukum mas'uul an ra'iyatihi ninka soo raaci la weydiin doona agaasimaha ahaado wasiiraha ahaado fal imaamu raaci oo ka bilaab nabi kaleey salaam dadka madaxda ah wariye iska saarsan guriyooda ku jiraan qolooyinkan waxay sameynayaan inay ogaan laga yaabo laakiin hadhow kama fujinaysa aniga ma ogeyn waa inay mutaabac ku sameeyaan sida Umar uu sameeyay jiray maxaa la qabtay maxaa la yeelay dilkaas ma banaano dadkaas in loo xayal qaybta kale waxaan leeyahay sidoo kale dawladdu waxa laga rabaa ballanka ay qaadinay fuliso muslimka waxa xalaqooyina ka soo hadalna ballanka in la fuliyo dan guud in la sameeyo oo arintaas dan guud loo dhigo hadii dawladdu wasaaradda la jirto wasaaradda loo dhiso laakiin maanta in berri la isku tuhmaadana qof masaakiin laga qaado oo masaakiinka dad kale la siiyo ama dad tun weyn oo ganacsada la siiyo dulmiga oo ilaahay qiyaamaha waa weydiina hadana waxa way hadii guru beec loo rabane تندر هالجليو ذات كأنها أوترتمان ولذلك دينتي محي قبتها شفعة وحلها الجار بحقه شفعة ساعة النبي عليه الصلاة والسلام وحويري هدي الدلبة قف الشركية هين أما قف مال وحكوا لا ذا هاي مركي لجذا مش أسجع أي وهرة إنه قد دت أجرب له مكيني كارو مركا أي لفتو إن لجذا هدي لله هاي ولا الإساء وماشي ملع ذي ومقالة وناجي ذي تهينه dawladda maadaama dhulka ay leedahay idii ka mas'uul tahay tantar hal geliyo beecaas way oo naada ha dhacdo ninka qaato markaas waa la gartay laakiin waxaan la hoosaysiinayo ninka dhulku goosto nabi kaleey salaam qitca u gooyo yiri aan lahayn dhulku walaalku wala isku cabaada Soomaaliya hadda dhan dhul loo cadaabaya maxay yeelay ninka dhul u dhacaya wuxuu u maleeyaa wuxuu isleeyahay dawladda leh loo saar asaan dhacay ganacsatada wadanka wax qarsay
oo ummadda qarribay ganacsida ugu badan war ilaahay ka cabsada oo ummadda haddaad wax qabanaysaan canshuurta la iska bixiy dowladda iyada dowladda dhismaysa laakiin canshuurtan inay ku galladeystaan rabaan dowladda ay yiraahdeen anaga wax ku qabanay tuks in looga qaaday rabaan hadhowna waxay rabaan walidaalika soomaalida dulmigoodu waa faafay waxaan leeyahay war anaga asku turno dowladda mas'uuliyadda kowna idaa qaadayso waxaa la rabaa dadkaas masaakiinta idaa ka mas'uula inay xal u keento dadkan waxaan leeyahay wadankiina wixii wanaagiisa ah idinkana ha iska duminina maxay wadanka dowladda ama socon karo ha iska duminina wixii aad rabtaan nidaam ku qaata laakiin maanta dhan waxaad arkaysaa nin cabaadayo usuq daalima arkaysaa waan aragna tvda ninna dan kaloo leeyahay waa iska qaylinaya war ilaahay wuxuu rabaa kaliya aarsi wax la dhahay aarsi walidaalika waxaan leeyahay halala fariisto ganacsatada ugu muhiimsan oo dhees anaga gadanayno war u turo masaakiin waxaan sheegnay ganacsatada gajaash ahay maalka ma dhargaan laakiin ummadda uma naxariistaan waxay siinayaan waxay rabaan zaka inay u xisaabaan war xuquuqan lagu leeyahay inta zaka bixin horta xuquuqda oo aad muwaadin ku tihiin oo wax kasta ku qaadateen oo wax kasta ku maamushaan waa ina ilaahay kaga baqdaan walidaalika waxaan leeyahay dowladda mas'uuliyadda 1 iyo 2 iyo 3 ku dhacaysa iyo shacbigu la doonayo inay waxooda si nidaam ah oo xaq ay ku raadsadaan haddii ay xaq ay lahayn xaq naftooda haddii xaq darro ku qaataan oo waxay ii lahayn ogyihiin ay dhahin waa leenahay dhahaayeen oo warqad been u soo subsadeen ilaahay intay laga qaada dowladda inay ka qaada uruun intii qiyaamaha laga qaada lahay xuquuqdaas oo ummadda leh maxay yeelay maalka dowladda loo sheegay maal ummadna leedahay dowladda kale geed malaha dowladda shacbiga kamid tahay walidaalika maalkaas ikhtilaasa la dhahaa sarqa xataa ma aha maxay yeelay xaqiga ku jiro dhulkaas oo wasaaradda ay dhisan xaqaaga ku jiro nin kastoo xaqiisa ku jiro marka nin xaq badan qaatay wax sahlan ma aha oo xataa tacsiir oo imaamka leeyahay inuu qofka wax kasta la xukumi karo marka waxaan leeyahay fitanka dhulku waa batay aad u batay waa ummadii waa isku dhibtootay dowladda laakiin mas'uuliyadda ku ida qaadayso waxaan leeyahay war ilaahay kaga taqullaha dadkaas ilaahay kaga cabsada wax u sameeya hadday diidaan ay dhahaan anagu wax la siiyey ee inkirayaanne dadka u bandhiga waxaa tiran waxaan siinee ayagaa diidan dadka loo caddeeyo laakiin waxaan laysku dhex qasay xaqa iyo baadilka anaga dhan safiina isla saaran anaga dhan isla dumayn ilahay xaqaana tus dhamaanteen baarak allah fiikum